kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada warbixintaani ama muuqaalkaani oo aan uga hadlayno kuna soo bandhigayno bilicda iyo horumarka deegaanka cagaaran ee gobolka Mudug. halkan maanta waan u soo jamcaysanay asxaab badan anagoo ah isla mar ahaantaana waxaan idinla wadaagaynaa warbixintan aan ku soo bandhigaynaa bilicda iyo horumarka iyo isku tashiga deegaankaani ay sameeyeen dadka ku nool dhowrkii sano ee ugu dambeeyay. maamulka iyo dhalinyaradii nala socotay iyo dadka deegaanka ayaa iyaguna aragtidooda nala wadaagaya iyo horumarka halkaan ka jira iyo fariimaha ay dirayaan. marka cagaaran isku tashatay horumartay horeyna u socota nala daawada. meeshaan joognaa waxa weeye deegaanka cagaaran waxaan ahay anigu gudoomiyaha cagaaran haddaan idinka warrabo 4 sano ee ugu dambeeyay waxay markhaati doonta oo aad aragtaan goobahaas muhiimka oo horumarka iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo jidadka iyo way ku tallaabsatay. waxa la oran karaa 4 sano ka hor waxay ahayd tuulo yar laakiin hadda waxaan kalkacaya waxaan ku haysanaa aan rabnaa inaan ku qabsano degmada insha Allah taala tuulooyin badan magaalooyin badan oo degmo aan xitaa aan uga haboonahay baa waxa la siiyay degmooyin. marka waxaan oran lahaa madaxweynaha Puntland waxaan ka rabnaa oo aan saxaafadda ku marinaynaa cagaaran bulshadeedu waa isku tashatay waxay samaysatay goobo danguud oo waxyaalo badan ay kam kasta laga helo. marka waxaan oran lahaa madaxweyne meelo badan baa madaxweyne kasta degmo sameeyay oo ka horeeyay. marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Puntland inuu cagaaran degmo u magacaabo. anagu waa hore baa degmo xigeen baa waxaan loo aqoonsaday muddo laga joogo 7 sano ka hor iyadoo ugu dambeysay sanadihii 4 sano ugu dambeysay aad aragtaan siyaalaha ay cagaaran isu bedeshay jidadka iyo waxbarashada iyo mataqaana horumarka caafimaadka iyo ammaanka iyo dhinac walba ay u tallaabsatay bulsho aad u fara badanna ay ku nooshahay. waxaan leenahay hambalyo reer cagaaran shaqo fiican baan qabanay. waxaan u mahadcelinayaa jaariyadda banaanka iyo cid kasta oo nagala qayb qaadatay horumarkaas cagaaran oo ama banaanka ha ahaato ama hay'ado caalami ha ahaato ama dawladda ha ahaato cid kasta oo cagaaran nagala qayb qaadatay waa u mahadcelinaynaa waa soo dhaweynaynaa. hadeer guriga aan dadka ku xirxirno waa mataqaanaa waa 2 qol oo meel gaar ah oo saldhig ah. marka waxaan u baahnayn lahayn saldhig weyn iyo xabsi wada socdo oo mataqaanaa yaan u baahnaan lahayn oo kowka ah oo hadda meeshu markay weynaato oo ay intaasoo bulsho ay maaragtay ku nooshahay uma baahna 2 qol iyo 3 qol iyo 4 qol iyo midna waxay u baahan tahay xabsi weyn iyo mataqaanaa meel laga hawlgalo. waxaan kaloo u baahnaan lahayn oo hadda naga dhiman oo waxyaalaha emergency ah ambulance oo kale gaariga hadda booliiska oo kale waxyaalahaas oo kale anaga laftiga maamulka maaragtay meeshaan ku shaqeyno waa meel maaragtay kooban oo loogu talagalay
in maaragtay dadka shirarka iyo waxaas oo aan hadda xaafisaan aan u samayno marka xarunta maamulka lafteedu waa u baahannahay oo way yar tahay wax badan haddii la dhaho baahida deegaanka ka warbixi wax badan waxay u baahan tahay in aan ku soo gudbiyo qoraal marka waan kaloo u baahannahay oo hadda waxyaalaha muhiimka ah waddo halkan ka timaada Bursaalax iyo annaga Cagaaran u dhaxaysa oo waqtiyaashii roobabka ahayd yani midlayaal inta gawaaridu goysay marar badan dadku aad dhibaato ugu qabo marka wax badan bay u baahan tahay aniga waxaa la dhahaa Sidaam Cabdi Abshir waxaan ahay maamulka ku-xigeenka iskuulkan hoose dhexe sare ee Cagaaran iskuulka hoose dhexe sare ee Cagaaran waa xarunta ugu muhiimsan ee ugu horeysay xagga waxbarashada basiga ah ama waxbarashada tooska si loo yaqaano ee deegaankan ardada dhigata waa arday ku dhow ardadaas kunka ku dhow 3 meelood meel kamid ah waxay ku dhigtaan scholarship ahaan inaha free bay ku dhigtaan wax lacaga lagama qaado ma sha Allah iskuulka hoos u leeyahay kii dhuxul leeyahay kii sirna u leeyahay iskuulka hoos oo kale fee iska yar baa laga qaadaa $10 iskuulka sare 20 waana 3 meelood markii lagu yiraahdo waa 1000 waa 3 meelood waa garanaysaa arday 300 ku dhawaa waxay tahay free ah inta kale iskuulkaas waxa uu garab taagan bulshada deegaanka ama gudaha joogan ama dibadda joogan khayr tirada ma la siiyaan sidaas uu yahayna baahiyo tiro badan buu wili qaba iskuulku fiiga aan iskabin oo hadda bishan sanad xataa macallimiinta ay mushaarkoodii qayb leeyihiin saasoo kale iskuulku maadaama iskuul sare uu leeyahay wuxuu u baahan yahay waxyaalo badan ee ardadii ay horumar ku sameyn karaan sida laabkii library-gii waxyaalahaas iskuulku male guryaha iskuulka ku yaala inta badan bulshada baa dhistay mid ay dhameystireen iyo mid ay markay qayb ay dhameeyeen inta kale hay'aday wax dad kale oo si khayriyaadka u dhameeyeen maahane marka iskuulka baahiyihiisu saas weeyaan macallimiinta dhigtaayana 20 bay ku dhadhow yihiin ama gaarayaanba iskuul tuulo ku yaala oo hoose dhexe sare oo macallimiin 20 gaaraysa dhigayso arday kun ku dhow dhiganayso 3 meelood ay meel tahay free waa garanaya baahiyaha ka jira marka insha Allah waxaan leenahay cid kasta oo ka qayb qaadan karta baahiyahaas iskuulka halkan waa Cagaaran waa magaalada baaxadda ballaaran ku socota oo ku taala bartamaha Soomaaliya 35 kiiloomitir dhinaca waqooyi ka xigta xarun goboleedka Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxyaalaha ay horumarka ay ku tilaabsatay waxaan u malaynayaa ishina macallina Gaalkacyo Cagaaran waxa la bilaabay 1996 haatan oo 21 aynu joognana waxaan u malaynayaa degmooyin badan oo Soomaaliya ku yaala oo 1980kii la magacaabay inay ka baaxad weyn tahay taa waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadligiisa baan ku gaarnay baan leeyahay inta kadib baahiyaha ka jira waxa kamid ah madaxweynaheena dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa jira mashaariic oo dhagax dhigay deegaankan Cagaaran ee aan hadda joogno dhammaan waxba kama hirgelin waxaan si xushmad badan iyo qadarin ku jirta uga codsanayaa 2021 bilowgeedii mashaariicii oo madaxweynaha Puntland noo dhagax dhigay deegaanka inuu ka hirgeliyo waxaan kale oo si xushmad badan uga codsanaynaa codsiyada aan hor dhignay oo ay kamid ahayd wadada 20ga oo magaalada dhexdeeda marta in laga dhigo laami taana oo markiina uu yiri waan ka hawlgalayaa ayadiina inuu u dhaqaaqo mashaariicii uu dhagax dhigay waxa kamid ahaa in extraction lagu sameeyo saldhiga oo saldhig weyn la sameeyo isbitaalka laftigiisa la ballaariyo iskoolka la ballaariyo jaamacad waxaasoo dhan waa ka wada hadalay madaxweynaha xilliga halkan uu noogu yimi insha Allah ta'ala waxaan cod dheer ku gaarsiinaynaa maadaama ay saxaafadii Soomaaliyeed nala joogto inuu message-keegaas ka soo jawaabo insha Allah ta'ala khayr badanna waan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan kale oo madaxweynaha Puntland iyo baarlamaankiisaba si xushmad badan uga codsanaynaa codsiyada waxa kamid ahaa Cagaaran waxaan u ragmaa degmo kamid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka Mudug message-kaasna madaxweynaha waa nagala jira aad iyo aad waxaan rajaynaynaa dhammaan baaqyadayadii aan u diray haddana saxaafadu gaarsiin doonta dhammaantood inuu ka jawaabo
rajo badanna waan ka qabnaa khayr badanna waan u rajaynaynaa saxaafadda iyo shacabka Soomaaliyeed aad baan u faraxsanahay inay maanta nagu soo booqdaan degmada deegaanka cagaaran oo aan ugu samayno qada sharaf taasoo aan rabno inaan ku baahino ama aan bulshada iyo dawladda iyo dadka deeska aan ugu sheegno in ay cagaaran samaynayso horukac qiimo badan oo runtii dhinac walba isugu jira taasoo ay markhaati ka tahay maanta muuqaalada cusub iyo isbeddelka ay ku tallaabsatay waxaa hadda dhex taaganahay waa macad runtii aada loo qalabeeyey oo ay ka soo baxaan arday sanadka labadiisa dhinacba 6 biloodba ay ka qalin jabiso arday muxaafidiin quraan ah waxaa dhisay oo ilaahay ka ajar siiyey gabar muwaadin oo reer Puntland ah oo iska wax u qabso lagu dhisay oo dadka deegaanku ka soo jeeda oo ay dhisteen waxaan kala booqnay iskoolka oo ay dhiseen ayaguna dad deegaanka ah intooda badan oo isku tashi lagu dhisay oo runtii baahiyo badan oo waxbarasho daboolay waxaa kaloo jirta matooro iyo kaabayaal runtii arrimaha bulshada asaasi u ah oo ay dhiseen iska wax u qabso ama isku tashi bulshada ay ku samaystay taasoo la rabo in lagu dhiirigeliyo dadka deegaankuna ay ku daydaan oo runtii wax kale oo muhiim oo jira ay u sameeyaan runtii markaan degmada saa u fiirinay deegaanku deegaan aad u baaxad weyn weeye oo runtii u baahan wax kastoo ay magaalo u baahan tahay waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa weeye in asaasigii dowladnimadu runtii uu ku yaryahay meeshaan markii la yidhaaho xagga saldhigga oo kale maanta waxaan ku sugannahay deegaanka cagaaran runtii waxaan rabaa marka koowaad inaan aad ugu mahadceliyo akhyaartii nagu soo dhaweysay nagu casuntay oo ay maamulka iyo gudoomiyaha deegaanka ugu horeeyaan qayb libaaxlana uu ka yahay fikraddan iska lahaa Mr. Xamsi si gooniya wiilal iyo gabadhaba inaan uga mahadcelino iyo guud ahaan reer cagaaranba sharaftii iyo soo dhaweyntii qiimaha lahayd ee deegaanka noogu sameeyeen waa mahadsantihiin mar labaad waxaan rabnaa inaan qirno markhaatina ka noqono waxqabadka iyo isku tashiga baaxadda leh ee deegaankan ka socda oo runtii ah mid ku dayasho mudan reer cagaaran waxaan leenahay ku dayasha mudan tihiin horay ha loo socdo waxa idinka dhiman oo is leedihiin taag baa u weydeenna xaq baa u leedihiin in qayb leedin kala noqdo waa ayidaynaa waana xoojinaynaa fariimaha uu maamulku u diray qaybaha kala duwan ee maamulada uu gobolka ugu horeeyo oo uu stateku ugu sarreeyo waxaan leenahay cagaaran way mudan tahay in lagu daydo mar labaadna in lagu taageero dadaalada quruxda badan ee ay wado aad iyo aad baa u mahadsantihiin markhaati baan ka nahay isku tashiga ka socda baaxadda leh oo ah runtii mid aad iyo aad loo bogaadiyo aan isdhihi karaa cagaaran iyo waxa isku da maamulka Puntland xilligii la aasaasay iyo xilliga degmada cagaaran la aasaasay waa isku waqti waa isku da maantana waxay maraysaa horumar aad iyo aad loo taaban karo waa meel ay aad iyo aad ay uga jidho isku tashi ballaaran oo dadka bulshada ku nool ay isku tashtaan oo ay ka sameeyeen sida waxbarashadii caafimaadkii cusbitaal weyn oo aad u weyn oo aad u qalabaysan oo aad u qurux badan baa isku tashi lagu dhisay iskoolo waaweyn baa isku tashi lagu dhisay sida macadkan aan hadda taagannahay oo lagu dhisay si isku tashi ah oo ay ku dhisteen bulshada cagaaran oo macad aad u weyn ah oo macad ay ka soo baxaaniin asaasiyaadka tarbiyatul islaamiya oo lagu barto diinta islaamka iyo taxfiidul qur'aan sanadkiina ay ka qalin jabiyaan arday aad iyo aad u fara badan oo ka yimaada waliba ee deegaamada kaleeto oo Puntland ay ka mid tahay oo loogu yimaado isagoo loo soo doorto in ay tacliintiisa iyo xifdintiisa qur'aanka maadaama uu macad aad u sareeyo uu yahay deegaanka uu ku yaalana wax badan ka qabtay degmada cagaaran markaanu ka hadalno degmada cagaaran waa magaalo aad u weyn waxyaabo badan ku tilaabsatay meesha waxa laga fiiriyaa markay deegaan tahay waxyaabaha aasaasiga sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka runtii intaas aad iyo aad bay ugu tallaabsatay waa meel caafimaadkeedii ay u diyaarsan cusbitaal weyn bay leedahay waxbarashadeedii intaasoo iskuul oo kala duwan oo magacyo badan ilaa secondary school ilaa macadyadiyo gaara iskoolo dhexe jaamacaddii unbaa ka maqan baanu dhihi karnaa waa magaalo u qalanta maanta inay degmo hesho meesha ay ku taalo iyo sida ay iskugu tashatay in maadaama ay iyadu isku tashatay oo ay waxyaabo badan qabsatay waxaan ka codsanaynaa dowladda Puntland oo aanu ka mid nahay haddaanu nahay dadka cagaaran ama ka soo jeeda dhalinyarada cagaaran u dhalatay waxaanu ka codsanaynaa maamulka iyaga Puntland oo aanu isku da'dan nahay deegaankan wax badan buu ku tilaabsaday in naloo magacaabo degmo waan u qalanaa
waana u diyaar garownay deegaanka cagaaranna waxaan u malaynayaa inuusan ahayn wax maanta la baranayo horey loo yaqaano deegaanka kaliya waxaa maanta halkaan iskugu nimid inaan ogaano horumarka uu gaaray deegaanka iyo horumarada uu ku tilaabsaday oo ku dhismay si isku tashi ah waxaan leenahay halkaa laga sii wado dhammaan deegaanada Puntland waxaan leenahay la isku tashado dawladda waxa laga heliyay waxa ka wanaagsan in la isku tashado